Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa maalin arbaco ah ee ku beegan tahay bisha May 5. Waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena ciyaaraha oo aad uga barateen maalin walba janaalkeena Bakari Media. Qorshaha Real Madrid ee saxiixa xidiga Kylian Mbappe iyo Erling Haaland oo la ogaaday. Man United oo dejisatay qorshe ay ku doonayso saxiixa Harry Kane maxay damacsan yihiin. xog arinta la macna tahay in ay Real Madrid ka hari doonto Champions League caawa. Taariikhda ayaa tusaale ah mise ayay Man City ku qaadatay in ay gaadho finaalka Champions League. Real Madrid oo si dhow ula socota xidiga ka baxay qorshaha Pep Guardiola. Man City oo barbaraysay rikood taariikhi ah oo Real Madrid ka dhigtay Champions League. Chelsea Real Madrid xaqiiqooyin cajiib ah ee aad uga baahan tahay kulanka. Miyuu Ramos ciyaaraya kulanka Chelsea? Tababar Zidane ayaa ka jawaabay. Man City oo markii ugu horeysay gaartay finaalka Champions League. PSG ayay ceebeysteen. Chelsea iyo Real inta soo baxda ayay sugayaan. Aan ku bilownay kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay dejisay qorshe 12 bilood ah oo ay ku doonayso saxiixa xidiga Kylian Mbappe iyo Erling Haaland. Kooxaha ugu waaweyn Yurub ayaa isku baacsanaya labada xidig oo laga yaabo in ay kooxo cusub ku biiraan mustaqbalka dhow. Mbappe ayaa weli diidan in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda xilli uu galay sanadkiisii ugu dambeeyay ee heshiiska, halka Borussia Dortmund xidiga Haaland ku waayi karto lacag dhan 68 milyan oo euro. shakiga ku jira mustaqbalka labada xidig ayaa sii xoojinaya in ay kooxaha waaweyn isku baacsadaan saxiixooda, waxaana ay Real Madrid ka mid tahay kooxaha doonaysa saxiixa labada xidig. Wargeyska AS ayaa sheegaya in ay kooxda Real Madrid doonayso in ay ka faa'iideysato dirista Mbappe ee ah in uu heshiis cusub u saxiixo waliba u dhaqaaqo saxiixiisa suuqa xagaaga. sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa ku qanacsan in ay Dortmund ku qanciso in ay ka iibiso xidiga Haaland, laakiin heshiis la sii meel dhigto isla markaana u ogolaato in uu xidiga sii joogo Dortmund xilli ciyaareedka dambe ka hor inta uuna kooxda si toos ah ugu biirin xagaaga 2020. Man United oo dejisatay qorshe ay ku doonayso saxiixa Harry Kane maxay damacsan yihiin. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in diyaar u tahay inay tijaabiso go'aanka Tottenham Hotspur ayadoo dalab 90 milyan gini ah ku doonaysa Harry Kane. Harry Kane ayuu heshiis 3 sano ah uga harsan yahay heshiiska kooxda Tottenham, waxaana ay kooxdiisu ku dhibaatoonaysaa in ay koobab ku guuleysato. Kooxda Tottenham ayaa ku adkeysanaysa in uuna xidiga reer England iib ahayn qiimo kasta oo ay kooxuhu ku doonayaan, maadaama ayna doonayn in ay ka iibiyaan kooxo Premier League ah. Si kastaba ha ahaatee, wargeyska The Sun ayaa sheegaya in ay Man United diyaar u tahay in ay 90 milyan ku dalbato kabtanka xulka qaranka England si ay u helaan saxiixiisa xagaaga. Isla markaana wargeyska ayaa sheegaya in ay milkiilayaasha Man United doonayaan in ay baanka u jabiyaan Harry Kane si ay u dejiyaan cadada taageerayaasha kooxda, kuwaas oo si weyn ugu kacsan. Kooxda Real Madrid ayaa la ciyaari doonta kooxda Chelsea kulan ka tirsan lugta labaad ee semifinalka tartanka Champions League ka dhici doona garoonka Stamford Bridge. Kulanka lugtii hore ayaa ku dhamaaday barbaro 1-1 ah oo labada kooxood ku kala baxeen, taas oo la macno ah in ay Chelsea u baahan tahay barbaro gool la'aan ah si ay isaga xaadiriso finaalka tartanka Champions League. Dhanka kale, kooxda Real Madrid ayaa ku qasban in ay dhaliso gool haddii ay doonayso in ay hesho fursad ay ciyaarta dib ugu furto korna u qaado fursadaheeda iska xaadirinta finaalka tartanka. Shaki la'aan cid walba waxa ay garanaysaa taariikhda tababar Zinedine Zidane ee Champions League, isaga oo 3 jeer oo xiriir ah ku hogaamiyay Real Madrid koobka. Laakiin marka laga hadlo taariikhda kulamada Zidane iyo tababare Chelsea ee Thomas Tuchel, waxa ay walwal ku tahay kooxda Los Blancos iyadoo rajadoodu gaarsiisan tahay finaalka tartanka Champions League. taariikh ahaan Zidane ayaa ka hortagay Thomas Tuchel 5 jeer Champions League ah, isaga oo 2 kulan kaga hortagay
isagoo laba kulan kaga hortagay kooxda Borussia Dortmund, laba kalena tababare u ahaa PSG, hal kulanna tababare u ahaa Chelsea, kaas oo ah kulankii lugtii hore ee tartanka xil ciyaareedkan. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena ciyaaraha ee maanta. tabinteena tooska ahayd waxaad kala socotaan channelkeena Bakari Media. sidaas iyo nabadgelyo.